السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الرزاق أحمد حرسي from Bararo Fruit Empire oo ka mid ah sidoo kale bahda Horn Africa Farming. akhyaarta nagu xiran channelka naga ku xiran beeraleyda iyo akhyaarta kale oo beeraha isku diyaarinayso oo mar walba nala soo xiriiro maaragtay kana faa'iideysato maaragtay channelka naga mahadsanidin aad baa u mahadsantihiin. actually waxaa noo tihiin dad maaragtay aad baa noo dhiiragelisiin mar walbana su-aalaha maaragtay wixii su-aal oo qabtaan insha allah nala wadaago wixii su-aal ama channelka noogu reebo ama numberka naga meesha ku qoran oo mar walba maaragtay markaa wax soo qorayn oo kale numberka meesha ku qoran yahay haddii kale linkiga ahaan baa mar walba ku arkaysaa. asxaabta intaan maaragtay asxaab badan oo nala socota waxaa jirta oo channelka subscription saarin sometimes casharada dhaafa su-aalaha baryahan waxa nooma soo dhigtay ku dhahayo marka akhyaartaas waxaa idinka codsanayaa inaad channelka maaragtay subscribe garaysaan oo muxuu ahaa gambaleelka furataan si aad maaragtay wax walba maaragtay in la soo socodsiinayno insha allah oo maaragtay ooga baaqan oo la socotiin update walba oo soo dhigayno. horta xoogga naga koobaad waxaan saaraynaa number 1 sidaa in sheegnay muxuu ahaa xagga calafka xoolaha. number 1 waxa waaye dhinaca maaragtay fruit treeska ama geeda miroodka kala duwan oo maaragtay grafterka ama talaalka oo waqtiga gaaban ku dhalo. marka asxaabay dadka kale la wadaago insha allah dadka beeraleyda dadka beeraha daneynayo dadka rabaan inay kusoo biiraan beeraleyda insha allah la wadaago share gareeyo insha allah asxaabta gaarsiiyo haddaad group leedihiin gruubyada la share gareeyo insha allah si ay ayadan uga faa'iidaystaan insha allah wax walba maaragtay aqoon aan maaragtay wixii aqoon aan la wadaagi karno insha allah in la wadaagna isku daynaa insha allah inta karaanka naga ah. qof walbana insha allah inaan maaragtay su-aalna soo weydiiyaa insha allah inaan u jawaabno iyo isku daynaa. fadlan haddaana weyso ama kaa qaban weyna telefonka maaragtay fariin noo reeb si fiican maaragtay su-aalaha marka message waxaa jira automatic ah oo ku sheegaya goobta muxuu ah ku weydiinaya goobta aad joogto. marka su-aalahaas fadlan ka jawaab sababtoo muhiimadda aan goobta lagu weydiinayo waxaa waaye waxay kaa caawinaysaa marka alaabta dirayno kale wixii lagu qiimeynaya marka si lagu qiimeeyo si maaragtay dhaqso lagu qiimeeyo wixii macal kaargoogi Soomaaliya meel aan ka mid ahayn ama muxuu aan u diri karin ma laha. dhinaca Etoobiyana hadda waan bilaabi rabnaa insha allah isbuucyada soo socdo. wadin Kenyana waaba ka shaqeynaaba oo shaqadanada waaye. reer Hargeysa hadday tahay waa u dirnay, Xamar hadday tahay waa u dirnay, Boosaaso hadday tahay waa u dirnay. marka centeryaasha magaalooyinka ugu waaweyn Soomaaliya waa u dirnay. hadday geed noqoto geed talaal oo carro la'aan ah geedaha waaweynka sida cambaha oranjiga hadday caws tahay cawska super napier hadday tahay waa u dirnay. dadkina aad bay maaragtay ugu farxeen maaragtay sidoo ugu soo baxay codadkana qofkii naga request gareeyo codka waa la share gareynaynaa qofka aan u dirnay xataa feedbackgiisa haddaad rabto siduu maaragtay oraahda wuxuu kasoo yiri insha allah iyo sawiradii insha allah waa idinla wadaagaynaa qof walba oo naga codsado. sidoo kale waxaa jiro group beeraleyda Soomaaliyeed isugu tageen rag aqoon-yahanina ku jiraan rag beeraha soo barto agronomist ah. marka groupkaasna waa lagu daray qofkii danaynayo groupkaas baa lagu darayaa. aad baana loo kala faa'iidaystaa maaragtay dad iga aqoon badan actually naga aqoon badan oo beeraha ku takhasusay maaragtay oo aad u soo bartay ama Kenya ha ahaadaan ama dhanka Ethiopia ha ahaadaan ama dhanka Soomaaliya ha ahaadaan oo rag maaragtay cilmiga beeraha si fiican ugu takhasusay iyo dad xagga maaragtay experience-ka maaragtay xagga maaragtay maxaa la dhihi jiray takhasuskeeda leh oo yacni beerihii muusoo baran laakiin uu ku dhex jiray nin ku dhex jiray oo maaragtay tajriibadi leh waaye dad badan baa jiro. marka qof walba marka meeshaas waa lagu kala faa'iidaa. marka insha allah groupkaasna waa jiraa laga faa'iideysto qofkii aan ku jirin waa lagu soo dari karaa actually insha allah page-ka muxuu ahaa Facebook sidoo kalena waa in la soo share gareyn doonaa isagana macluumaad baa soo dhigi doonaa insha allah oo mar dhowna waxaan bilaabi doonaa dood cilmiyeed ku saabsan beeraha insha allah rag aqoon-yahaniin oo beeraha ku takhasusay anagoo keenayno ama xagga Facebook ha noqoto ama Twitter space ha noqoto insha allah waxyaalaha aan ku guda jirno yay noqonaysaa maaragtay bilaha soo socda siiba September iyo wixii ka bilowda insha allah bishan 8aad inaan bilownay ahayd laakiin waxyaalo badan baa maaragtay dib noo dhigay hawlo badan iyo anagoo waxyaalo isku diyaarinayna project iyo waxyaalahaas. marka insha allah khiyaarta wax walba oo kambaniga Bararo uga bahatiin
waad helaysiin. sidoo kale waxaa jiro company isla anaka companyga naga oo la dhaho xagga waxaa waaye beeraha consultationka beeraha waxaa la dhahaa modern agro solution baa la dhahaa xagga consultationka calafka ama xagga fruit treeska yaa insha allah bixinaynaa qofka u baahan xagga consultationka insha allah ama wixii tala bixin ahana waa lainka caawin doonaa. registration kenya ka register garaysan yahay soonna waxaan rajeynaynaa insha allah inaan soomaaliya oo kale ka register garayno waxyaalo badan oo beeraleyda soomaaliyeed u fududeyno xarumo badan ka furano. targetkana koobaad horta waxaa waaye inaan xarunta koobaad inaan ka dhigano somaliland ku bilowno siibaa meesha la dhahay burco iyo hargeysa agaarkeeda mid ay noqotaba insha allah halkaas baa maaragtay caga dhiganayna marka koobaad bisha September wix ka dambeeyo yaa rajeynayna inaan xagga tagno. marka wax yar inaan ka hadlaa rabaa cawsaska calafka xoolaha markaan ka hadlayno kolley horeyna waa usoo sheegay waxaa loo kala qaadaa 3 nooc. qayb waa legumes waa qaybta digirta ama muxuu ah barsiim ama alfa loo yaqaano waa qaybtaas legume. qaybna waxaa waaye kuwa geedaha fodder trees la dhaho. qaybna waa cawsaska kale waxaa ka mid ah boqorka cawsaska oo hore uga kasoo hadlay super napier waxaa ku xigo cawska la dhahayo Mombasa grass oo actually asagana aad u fiican mulatto asagana fiican sugar grass oo muxuu ah mulatto 2 sugar grass cawska la dhahayo kuwaas waa ka wada hadlay laakiin qaybahan ka hadlin oo aad u soo qaadan waxaa ka mid ah cawska la dhahayo Mombasa grass oo isana ka mid aha cawsaskii aan sugayna calafyada xoolaha kuwa aan sugayna ka mid aha. actually waa caws la tajribeeyey Soomaaliya meelo badan hadda kal guduud waa lagu waxeeyey xamar rag baa ku tijaabiyeen maasha Allah. markii loo barbar dhigo asaga iyo mulatto aad buu uga soo wax soo saar badan yahay. hectarki waxaa la dhahaa 100 ilaa 120 tan ka badan waad helaysaa haddii aad maarata under irrigation ku samayso waana caws proteinkiisa wuxuu dhexeeyaa 14 ilaa 16%. waxaana meelaha aad uga baxo waxaa waaye adduunka lagu tajribeeyay waxaa ka mid ah Sacuudi Carabiya yaa wuxuu uga baxaa si aan inaba caadi ahayn. actually comparison baa waxaa la isku barbar dhigay isaga iyo mulatto 2. cawskan mulatto 2 waa ka soo wax soo saar badnaaday sidoo kalena xagga proteinka iyo xagga nafaqadana waa ka wax soo saar badnaaday. marka cawskaas baa jiro oo kolley YouTube-ka asagoo English iyo asagoo Carabiga oo la harvest garanayo yaa soo share gareeyay. horeyna ugama hadlan si fiican ugama hadlin laakiin waa caws markii super napier laga soo tago cawska labaad oo ku talinayna waaye actually markii aan xog aruurinay oo meelo badan xog ka soo aruurinay waa cawska labaad aan dhihi karo uu la tartami karaa super napier. cawska saddexaad waa sugar grass laakiin sugar grass wuu ka soo wax soo saar badan yahay maxaa la dhahayaa midkaan la leeyahay wuu ka soo wax soo saar badan yahay Mombasa grass ama panica Mombasa laakiin waxaa waaye 3 jeer baad goynaysaa kadib abuur baa u baahanaysaa. kan waxaa waaye Mombasa grass mulatto iyo cobra iyo cayman ayagoo isku family ah 10 sano beertaada 8 to 10 sano uu ku yaalayaa. sidoo kale sanadkii waxaad goosan kartaa 6 jeer ilaa 7 jeer waxay ku xirantahay mar walba managementigaada habka wax u maarayso yay ku xiran tahay yaa habka u nafaqayso yaa habka u waraabiso. cawska hadaad nafaqadiisa ku dadaasho nafaqada waxaa ka wadaa sometimes yura waa isticmaali kartaa laakiin nafaqada wadankiina mar walba ka buuxda oo in kula talinaya waxaa waaye nafaqada saalada xoolaha ama digada xoolaha xaarka xoolaha ama kan lo'da ha ahaado ama kan geel ha ahaado kaman ariga wadanka kolley waxaa tuuran midka ariga midka geela xataa kan dameerka waa la isticmaali karaa laakiin mar walba wuxuu yahay waa inuu ahaadaa mid ruud ah oo duug ah oo 3 bilood ka weyn 3 bilood waa inuu ka weynaadaa oo karay hadduusan karin diyaari biyo ku shub dad ilaa 3 bilood diyaari kuleylka ka baxo markuu diyaarsamo markaas cawska markaad goosato ku dhex daadaadi carra kula gadi haddii kale wax yar lagula gadiyaa. marka cawsaska haddaad nafaqada ugu dadaasho waraabkana ugu dadaasho si fiican bay u baxayaan. cawsaskana haddaan runta in sheego waa tropical waxyaalaha lagu dhahayo tropical waxay ka mid yihiin waxyaalaha tropicalka aad uga baxo meelaha kulul. cawsaska oo dhan waxay ka baxaan meel kulul ay ka baxaan wayna ka degdeg og yihiin meelaha qabow. meelaha hadda kasoo qaadoo kale jawigeeda from 30 ka bilow 25 ilaa 40 oo kale cawska bil buu diyaar ku noqonaya caws walbo sababtoo qoraxdii waxa cawska dedejiya waa qoraxda.
marka caws iyo haddaad isku hesho qorax oo deegaanka soomaalida ay qani ku yihiin iyo biyo isku hesho waxaa idin leeyahay qani baa tihiin dhulka ha laga faa'iidaysto insha allah aad haysatiin iyo biyaha waxyaalaha aad looga naxa waxaa ka mid ah maalin dhaweyta gruupka beeraleyda waxaa lala soo sheergareeyey goday webi ku yaal webiga goday oo gobolka shabeelle oo Ethiopia webiga beer saaran yaa waxaa ku baktiyey ilaa xoolo baktigooda waxaan ku aragnay videoga sodomeeyo waa ka badnaayeen webigii biyihiina waa u muuqdaa ka waran dhulkaas baa haysataan qaniga ah oo biyihiisa gurayn reer Soomaali galbeed weliba Soomaalida kale waaba ka fiicantii 100% dhulkiina wuxuu yahay dhul baaxad leh oo qani ah dhulkiina xoolihiinana waa baktinayaan gaajo u baktinayaan waxaas waa dulinimo wax laga naxwaay marka waxa laga naxwaay aad looga naxo waxaad sameysaan dhulka xoolaha ku baktinaya walaalayiino cawsaska calafka ku abuurto waa hadaad cilmiga aadan hayn xataa waa in kala shaqeynayna cawska inku muxuu calafka inku haboon waqtiga yar inku soo go'ayo ama kan muxuu ahaa in anfacayo waa in kala shaqeynayna diyaar baa idin la nahay marka walaalayiino dhulkiina ka faa'iideysto webigi baa haysatiin xoolihi baa in ka baktinayo xoolihi dhul waxa way deegaan xoolo badan actually dhulka Soomaalida meesha ugu xoolo badan baa yaa degantiin gobolka Shabeelle oo xoolaha loogu dhoofiyo sidaan akhbaarta ku helnay waaye marka dhulkiina ka faa'iideysto jaahilnimada aad maaragtay sidii awowliyadeen aad xoolaha daba joogtiin iska daaya xoolaha barka kalena beer oo dhul ugu beero calafka webigaas inta u jiro xoolo inay ku baktiyaan wallahi hadii la arko dadkan Kenyaanka ama dadka Afrikada kale loo sheego way idin la yaabayaan actually dhulka Kenya hadii in kaga sheekeyno galeyda ugu badan waxay ka mid tahay dhulka ugu badan oo galeyda ka soo go'do haddaan ku dhahana webiga wuu ku yaryahay inta webiga ka soo go'do waa yar tahay webiga wuxuu maraa dhulka Gaaris iyo dhulka Soomaalida u badan webiga meesha ugu badan yumar ayagana waa dad xoolo dhaqata maba abuurtaanbo ama fatahaadiye oo adiga laftirkooda kama faa'iideystaan waxay la mid yihiin Soomaalida kale wax ma dhaamaan marka dadka kale oo Kenyaanka kale haddaad goboladooda tagtid waxay ku tiirsan yihiin number 1 roobka iyo biyaha la qabto iyo ceelal ay qotaan dadkaas aad aragto galeyda ay soo go'do ilaa Soomaaliya iyo Afrikada kale laga gataa marka maxaa idin keena adinkoo webiyaashaas haysto qaniga ah oo biyaha kala go'ayn 24 habeen iyo maalin mid kale waxa kale dadka dheertiin waxa waay qoraxdi baa haysatiin waxa kale sii dheertiin Soomaali galbeed waxaad haysatiin koronto raqiis oo jaban uma baahanadiin inaad shidaal maartay motor shidaal isticmaashiin bam shidaal inaad ku waraabsiin beerihiin dawladda Ethiopia waxay diyaar idin la tahay sida xog ku helay inaad maaragtay beerihiina ku isticmaashiin generatorka oo korontada isticmaasho bamka korontada isticmaalo oo lagu soo muxuu ahaa beerta lagu bam gareeyo taas hadaa haysatid maxay tahay waxa nimcada marka nimco dhan baa isku haysataa adduunka korontada qaaliba ka tahay laakiin adinka koronto waxay haysatiin raqiis ah oo biyihii webigaaba laga dhaliyo waa taa Masar isku hayso Masar waxa in ku haysata waxa waay nicmadaas ay haysatiin bay idin diintan tahay ma fahanteen marka nicmadaas idin la taalo dawladda Ethiopia ay diyaar idin la tahay ka faa'iideysto waxa kale xog ku helay in xataa dawladda diyaar idin la tahay in dhulka la idin falo mashiinada la idin siiyo cagafta la idin siiyo dhulkii la idin siiyo aad iskaashata ku gashiin maxaa idin diiday inta qabyaalad iyo wax qoran isku ceyrsantiin iyo anaka ree hebel iyo anaka muxuu ahaa saan ahayo anaka meeshan ka taliyo inta waxa isku haysatiin maxaa dhulka iyo nicmada haysatiin u fiirin laadiin war ilaahay ka cabsado abaartan waxa la idinku salidayo ilaahay waa inku ciqaabaya wallahi waa cadaab xagga rabbi in kaga imaaday aniga sida aaminsanahay waa la inku ciqaabaya adinka leedin tusaya inaad aqligiina ka shaqaysiin oo nicmada ilaahay idin siiyey ka faa'iideysatiin dhul ba u dagaalamaysan dhulkiina dad baa in ka qaadan dad dhulkooda ka haajirayo oo xoolihii aan badbaadsanayn maxaad horta dhulkiiba maba u joodina waad ka haajiraysiin daaro waxa ka dhisan wadamada kale daaro ka dhisanaysin nin aan dhulkiisa horta ka cararay seeba dhulkooda lagu qaadanin ani waxaan aaminsanahay dhibaatada anfarta in ku hayso waa wax adinka in ku kaysateen
hadda canfarto kale waa dad in la dagaalaya dhulkiina qabsanayaan laakiin maxaa sababta keenay adinkaa dhulkiina ka hajiray adinkaa isku joodo haddaad adinka isku joodaan ya waa liin ciqaabi xaq waxaa linku ciqaabi adinkaa linku saladi dadka kalaa laisku kiinsaladi sidoo kale abaar baa linku ciqaabi waa waxaa waaye sababta maxaa yeelay nimcadii ilaahay idin siiyey adinkoo isku luuqad ah adinkoo isla dhashay ya yaad islaynaysiin muxuu ahaa boqonaha isjaraysiin waa isnacab tihiin intaad dhulkii iyo nimcadii rabbi aad ka faa'iidaysan lahaydeen yaa adinkaa isku joodiin marka waxba yaa hadalka inku dheerayn nimcada ilaahay idin siiye ka faa'iidaysto ilaahay u toobad keeno ilaahay baryo hay-ad iyo waxaad ka daba ordaysiin iska daayo waxba dadkan hay-adaha NGO-yada la wareegaya waxba idinma tarayaan waxay idin tarayaan ma laho waxaa la rabaa intaan yarta doolarka yarka oo $60 $100 lagu siinayo bas in wadankiina linku nabad guuriyo adinkana saas uga tagtiin dad kale ay imaadaan ka qabsadaan weligiina saas ba gacanta u haadaysiin waxaas waa gunnimo ilaahay ka cabsado wuxuu ilaahay idin siiyey dhulkiina ka faa'iidaysto waxaa la idinka rabaa Afrika iyo muxuu ahaa caalamka kale inaad qoodisaan baa idinka rabaa meel fog ka fikiro carabaha adinkaa idinka rabaa inaad qoodisiin waqtiyada soo socda waxaa dhici doonta inay dagaalo adduunka ka qarxaan wadamada way kala xirmi doonaan adinka wax walba oo idin imaado dibaddaa ka keentiin markii adduunka kala xirma xaggee wax keenaysiin carabahoo kale xaggee wax ka soo saaranayaan qamadigi Ukraine buu ka imaanayay hadda Ethiopia waa isku tashatay si fiican bay samaysay laakiin dadkaas si fiican ta sameeyay Soomaalida Ethiopia ma ka faa'iidaystay dhulkiina waa haysatiin ya marka insha Allah dhulka ha laga faa'iidaysto dawladihiina ka faa'iidaysto muxuu ahaa dawladda ha laga faa'iidaysto ragga madaxda ha loo tago ha laga dhaadhiciyo in dhulka maarta laga faa'iidaysto hal iska daayo NGO-dan yaryarka oo la ceyrsanayo maarta iimaan yuqyuqa laga qaadayo war ilaahay ka cabsada waxaan wax lagama helayo waxaan waxba kama helaysiin dullinimo iyo gunnimo yaa ka qaadaysiin waxa dhulkaada waxaad ka soo saari kartaa ka badan yaa calafka xoolaha aad u soo saartaan carabahoo kale u baahan yihiin waxay ka keenaan Yurub iyo America iyo China dhulkaasaa laga keenaa war adinka abuurta xuduudi waxba uma jirtiin baddi muxuu ahaa Boosaaso haysatiin Xamar baa haysatiin waxaa haysatiin Barbara haysatiin xeebihii oo dhan baa haysatiin carabihii waxba uma jirtiin carabaha adinka in ku tiirsan wax walba inaad u geysaan baa idinka rabaa kontraktiya la soo saxiixdaa dhulkii ayakaaba diyaar u ah adinka uga dhow adinka muslim isla tihiin waxaan kala khilaafka muxuu ahaa waxyaalo yar yar baa la isku hay waxaas waxba ma aha ayakii baa diyaar u ah inay maarta investigate laakiin kontraktida raasado dhulkii waa haysiin adinka haddaad opportunity-giina tustaan waxaa haysiin iyo si nabad ugu tagtiin iyo si maarta isdabamaryo ah wax walba la in qabanaya laakiin haddii wax walba aad NGO iyo daba martaan oo wax yar shilimaad yar ceyrsatiin weligiin meel ma gaaraysiin marka hadalkay idinku dheerayn walaalayaal inta asxaabta aad muxuu ahaa nala socotay inta nala soconin hadalka idin leeyahay asxaabta kale la wadaago gruubyada Soomaaliyeed ha loo qaybiyo qabyaalada hal iska daayo wax soo saarka dhulkiina ha loo soo joosto wax aan ka soo saaran karin wadankiina ma jirto hadii liin dhaho dhul qabow bay wax ka baxaan iska daayo wax walba dhulka jawigiina dhulka aad degantihiin bay ka baxaan wax walba adduunka ka baxo boqolkiiba 90 wadankiina waa ka baxaan iyo dhulkiina cimilada waa wax yar cimiladaas kama baxayaan waxaas waxa ma jiraan adduunka abuur walbo jiro wuxuu leeyahay muxuu ahaa qayb wuxuu leeyahay nooc kamid ah dhulka kulul dhulka jawiga dhexdhexe dhulka qabow waa lagu talagalay laakiin wax walba wuxuu baahan yahay baxsiga iyo wax soo saarkii iyo baaristi dad Soomaaliyeed oo aqoon yahaniin adduunka daafeed wax ku soo bartay baa jiro waa la idinku xirayaa wax walba oo su'aal haysiin waa la idinkaga jawaabayaa adinku bas ah waxaas u baahanay tufaax ba dad baa xogdaa tufaax iyo avocado kama baxo oo dadkan kale say ugu abuurtaan dadka dalka Afrika Masar South Africa jawigooda jawi qabow mar walba Yurub ma jawi qabow mar walba waa ka baxaan Mareykan jawigiisa ma ka warraytaa muxuu ahaa cimiladiisa waase wax walbana way ka baxaan extreme bay leeyihiin xagga qabow haday dhaha extreme yani meesha ugu dambeysay kuleylka xagga hadii kuleylka la dhahana qabowgana hadii la dhaha meesha ugu dambeysay joogan wax walbana waa abuurtaan
marka waxaa ku haysiin waxaa cimiladeennaba ka baxaan waxaan tijaabo cawsaskan dad international ama calafka ama geed walba internationally research companiya waaweyn baa yaa muxuu ahaa yaa tijaabiyeen dhulkiina iyo deegaankiina waa kuwa loogu talagalay just waxaa u baahan tihiin in la in guide gareeyo noocaas iyo qaybtaas abuur in la indhaho bas ah yacni taladii basaa u baahan tihiin qofaa wuxuu ku dhahay war niyow 20kaas xabaa tijaabina isoo dir intaa yarta war waxaan waa wax la tijaabiyo walaal waqtigaa iska dhumin waqtiga ha iska dhumin 100 xabo oo tijaabisa waxa kuma tarays adigi waa lagula step by step baa lagula soconaya annaka ku guide gareynayno wixii ugu talagashay bilow qorshaha bilow waxba waqti ha iska dhumina 20kaas baa tijaabinaya 50kaas baa tijaabinaya war wax aan ka baxayn deegaankiina ma laha adigu dhulkii waa haysataa biyihii waa haysataa labadaas qaacidood bas diyaari nafaqadina waa helaysaabo marka insha Allah asxaabta gaarsiiyo inta nala socon oo subscription saarin fadlan subscribe gareeyo insha Allah wixii su'aalahana numberka meesha ku qoran oo linkiga soo dhigan la soo wadaago biidnillah wax walba oo Kenya uga baahatiin insha Allah inaan in fududeyna isku dayna macal qiimaha ugu wanaagsan company-ga ugu wanaagsan sababtoo xiriir baalan la leenahay marka waxba ya hadalka idinku dheerayn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wabillahi tawfiiq wixii canaan ahaan hadii waa in la canaanto maartay waa mudantihiin dad in la canaanto ma ahee ma aha dad soconaya ma tihiin indhaha wax ku aragtiin war indhaha wax ku arkaysaan iska joojiyo actionka ficilka badsado fadhi ku dirirkana iska daayo assalaamu calaykum